Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Xorriyadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala aadanaha siiyay. Waana mid haddii qofka laga qaado ay noloshiisu noqonayso mid mugdi iyo ciriiri ay ka buuxaan. Haddana waxaa jira dad arxan daran isla markaana dulmiya dadka kale, sida in ay dilaan ama hantidooda ka dhacaan, kuwaasi oo dambiyadaas ku mutaysta xukumo kala duwan sida xabsi daa'im ama madaxaha ku furto. Haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa qaar ka mid ah maxaabiis lagu xukumay xabsi daa'im iyo falcelin ay sameeyeen markay ogaadeen xukunadooda. Andrew Worth ninkan waxa uu toogtay isla markaana dilay sarkaal booliis ah. Markii maxkamaddu dacwadiisa dhageysatayna waxa lagu xukumay xabsi daa'im, laakiin sidan ayuu uga falceliyay. Ninkan markii ay boolisku qaban kari waayeen waxay u adeegsadeen bastoolada korontada. Gabadhan waxa lagu xukumay 20 sano kadib markii ay qiratay inay ka dambeysay dhac sababay dhimashada wiil dhalinyaro ah, balse hooyadeed oo goobjoog ahayd maxkamadda ayaa oohin jabsatay iyadoo ka dalbanaysay qaadiga maxkamadda inuu dambigeeda dib u eego. Waana tan sida ay wax u dhaceen. Markii uu ogaaday in lagu xukumay xabsi daa'im, ninkan lagu magacaabo Michael Martin waxa uu afka gashtay shay aan la aqoonsan, waxaana kaamaradu qabatay isagoo sii liqaya shaygii. Muddo yar kadibna dhulka ayuu ku dhacay, waa uuna geeriyooday. To swallow something after the verdict is read, notice as he reaches down and appears to get something from his bag. He then wipes his face, swallows something, and appears to swallow again. But 8 minutes later, Marin starts convulsing and collapses. Kadib baaritaan lagu sameeyay jirkiisa ayaa lagu ogaaday inuu cunay sun aad u halis ah. Labadan dumarka ah waxa lagu helay dilka gabar 3 sano jir ah. Kadib dhageysiga dacwadoodana waxa maxkamaddu ku xukuntay labadoodaba xabsi daa'im, balse markii ay ogaadeen xukunadooda waxa ay bilaabeen inay ooyaan isla markaana dhulka isla dhacaan. Waana tan sida jawigoodu isu bedelay. Sentenced to the State Department of Corrections for a period of life. You will get credit for any of the time that you've served. That will be sidoo kale mid ka mid ah waxay gaadhay heer ay suuxdo ilaa qolka maxkamadda laga saaro iyadoo lagu wado kursi curyaan. Ninkan lagu magacaabo Jahlaal Hoskin waxaa lagu helay dambi ah inuu dilay hooyo 5 carruur leh, kadibna uu meydkeedii ku riday meelaha qashinka lagu guro. Waxaana markii qaadiga maxkamaddu ku dhawaaqay in lagu xukumay xabsi daa'im, uu isku dayay inuu la dagaalamo qaadiga, isagoo ku tuuray miis hor yaalay, laakiin isla markiiba waxa qabtay askarta maxkamadda. Wiilkan dhalinyarada ah waxa uu dhac iyo dil u geystay nin kale, balse waxa uu aaminsanaa inuu heli doono fursad kale ama rafcaan maadaama uu da'diisu yarayd. Laakiin markii maxkamaddu go'aamisay in aan wax rafcaana la siin, sidan ayuu jawigiisu isu bedelay. intaas ayaan idin la wadaagnay saaxiibayaal maanta. Haddii aadan channelka weli ku soo biirin, fadlan subscribe saar. Haddii uu fiidiyowga ku qanciyay, like saar. waad mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.